عليكم ورحمة الله وبركاته. مسؤولين وزارة البرشلة حفيز كامتحاناتك يبقى الصحافة يبرو سرطان وصاكا مرتين هو هالكن نلاقي إيه قدونا أول وصل السودان امتحان كان هي هوليس هي حفيز كان محمد ماينا يا مدة تطبق بالوضع إنه هوش بسوق جرين طبعا قابل السمايين امتحان كمان الديارية أنا قبرنا لسود درسي أردني بالحبية هذا كبار لو سمايي وحلا حشادنا رجي وجامني يرجي امتحان كيلاليني قاعدين كي يصحيدي بالديارية هذا قوبيه بالجارسية مركا ساك مركا وحرم فدنا إن امتحان كي بلاوضو أو ضل كوردن جمهورية السوماليلاند وقبل مساك سديد الصبح نمو وقبل وضي وهنا قبل وضي قوبا دن مركا تراهان لسوق جيو قوبا دن وقول يستغاشن قوبود أيو قبل وضي ويسقو جرا دوكسي دحاء هي دوكسي سرابا tirada ardayda u fadhiisatay ee dugsiga hoose dhexe waa 15145 oo u kala baxa 9167 oo wiilasha ah iyo 5978 gabdhaha tirada u fadhiisatay dugsiyada sarana waa 9901 oo u kala baxa 6493 wiilasha iyo 3408 gabdhaha ah tirada markii la isku geeyay saaka u fadhiisatay labada dhexe iyo saraba waa 25046 arday oo ka kooban ilaa yacdo ilaa eelaayo intaas buraan isku jirta ilaa buraan intaa u dhaxaysa imtixaankii oo ka bilowday saaka oo bishu tahay 20 maalin sabti ah 8 subaxnimo watadarka saalkaynu ku fureynay marka inta laga yimaado waayo badan baa jira والله يريد هؤلاء امتحانك حالي هل كان ده كل يوم كذا سوى هذه الشهر شنطهم بكرة وحال كنا باب أما شنطة يبركة هي وزير كوين حالي لا الله بدي بنشوفني هل كان معلومات كبين تلستلي حمرية كاو كشيكية داود وحن عصرنا إذا ماذا كل شغلة هؤلاء إن قومها النوع عاسى قاعد اللي وقف طيب كوا والله أي خسارة يكون جيران عروت بيدا عيان والدك بيدا عيان العقبة وروسنا يعني مركا إنه أو بوليس له وإذا كي حوران كله كي CID ذله وكي نبض سوق ذله إن ده هذا خرافات لقوري جيو وعروض العقل اللي قاعدوا لنا وحنا هنا امتحاناتك أبين وطاي تليها جود البوليس وعن كعد سنة هنا إنه قاعد توصل لقول بقى وهولم حالي مكان هيد كوبي طوانكي يبركي يوزدير الدوري وبرعجوجا نرسو هذلو عوري امتحانكي 8 مادة الله هي وقصد وصعب كوكو صدر وقوة هيسان يدوب داودنا هرون روش شيء 6 سنة كور امتحان كله قاعدة وياه ودي بلوك راعي ودي بدين تو عجل لو شوي لودري ملك استوى بورما لودري برع لودري بربرا لودري ملك استوى ذلك مركان ني خبير اسكا دغين سو خداي ولعت لغو هوينيا dadkeenu lacagta iska bixiyaan kameel lagu shaqeysanayo yaa laga dhigo waa la macna tareebo weey arintaas ma fududa
goobo caadiya weeyaan oo lagu iibinayo oo laga carruurta lacagta lagaga gurayo iyagoon awoodinba waxaan codsanaynaa oo mar labaad iyo mar saddexaad baan ku celinaynaa jenaraal fadal tallaabo adag inuu ka qaado arrintaas arrinta kale muhiimkan u sheegaynaa waxa weeye waalidiinta dugsiyada gaarka ah iyo dugsiyadan kale ee dawliga ahba horta lacagtii kaalasha way bixiyeen mar hore ee rool nambarka lagu sameynayay dugsiyada dhexana ahayd $3 dugsiyada sarana ahayd $8 waa laga qaaday beri horeba lacagta iminka laga ururinayo waxay leeyihiin macallimiintan ku habeynana laynii keeno oo imtixaanka si aad xagga sare u gashaan waxbarashadu inay gasho ganacsi maaha hadday ganacsi naga gasho waxbarashadu waynu duminaa imtixaankuna ciqaab maaha ardayga mustawiisa lagu ogaanayaa iyo halkuu gaadhi karo iyo wixii aynu baranaynay halkuu gaadhsiisan yahay siyaasaddeeni inuu ka turjumayo weeyaane imtixaanku dee cadow maaha cadowna ma wado macallinku imtixaankiisa wuu ilaashadaa isagoo keligiiya maaloodan soo maray garadag ninkii imtixaanka sameeyey dee isagu sabjadkaa lahaa iyo 2 macallin oo kala qaadayay 20 bay u fadhiyeen ninba kursiga miis u fadhiyey way ilaashanayeen baan ku imtixaankiina sidaad u ilaashataan ka dawladdu markuu yimaadana daaqadaad uga soo dhacaysaan marka maxay galeen labada imtixaan kan yaa la kan stateka kaa isagaa wato oo wuxuu leeyahay kan waa imtixaankayga waanaale kan yaala isaga kan maloomo ooyaanba madhnaanteenna sheegaysaa madhnaanteenna iyo maskax koobnaanteenna iyo tilmaamaysaa arrintaas aad uga waaniya bulshada qaybta siyaasiga laga koriyaa dadka idinkuna warbaahintii baa tihiin ka koriya qaybaha siyaasiga dadka